respectiga ay helayaan qorbo kuma helayaan waan kaaga baxay taada ku soco wallahi ninkaas waa fariid ninkaas waa shay weydii walaal waxa weeye hooyooyinkeen horta waxa weeye intay dumarkeennan iyo iminka hablahan jooga ay garanayaan ma garanayaan 10% habluhuna iyaga xanaaqin dumarkaas waxay garanayeen wax badan oo noloshoo dhan dadkan dambe ku soo koray fast dhaqsaha iyo technology-ga wax badan garanayaan laakiin hooyooyinka iyo ayeeyooyinka waxay garanayeen wax badan oo ay garanayeen ninka sida loo qadariyo ninka sida loo dejiyo ninka sida loo dhaqmo ninka xitaa sida loo kala wareejiyo isagoo cirka maraya dhulka la dhigo isagoo cirka marayana mar labaad dhulka lagu dhufto bay garanayeen environmentkii iyo waqtigii iyo noloshii baye iminkana waxaa lagu jiraa technology cid isoo ma jirto kana la eegayaa hadda la hadashidna maxaad sheegaysaa maxaad waa la isku dhacayaa noloshii waqtigii baa isbedelay baan anigu taa sheegaya laakiin anigu ma lihi xumaan ma lihi dadkii halkaa joogay gudaha si xun u dhaqmayo kuwana si fiican u dhaqmaya anigu waxaan leeyahay waqtigaa isbedelay waan ka baxay okay waa mahadsantahay imaamadana weli waa taagantaa waa ku saarnayaa raali noqo وصاحب أنا يا تيك توك حلقة أنا اسكوريجا فيديو وحقيقي صبح والله قبلها واحد عمرك سنين قبل وبحر وهذا ما يستاهل ما حاجة هذا ولا شيء ما دام وباشو أنا حظي ما ولا شيء دب مرة عادي أنا واحد بعتها ما قبله لكن وحالينا قبلها ده الجنبي جورستين أنا كرئيستين أنا كتكتين أنا قاعد يجيب بعينينا هو كلام ربع أنا قد درنينا. There is no personal though. You taking it personal. قف هذه كارثة تملا قف كورثة تملا إبو. قف البدن تذي رعته قف البوحي أوروني رعته قف البوحي أنفعي رعته. ما فهمت. لكن قبلها نقول دراية قبلها هذا الحين الجنبي يكون سنة يا. قبلها الجنبي يكون. الجنبي يا وحسانة. أجنبي هذي راعي أم بأجنبي هاي راعي أم بسومالي هاي راعي قف كل بقف دانت هذي راعته. سو هذا قف أجنبي راعي إني أنا ماركينو كاردا ناس no قف دانت هذي راعته. تقول تقول شيء كراباي. ده أمره. أمره شيء كمان واحد ما يحب أن كتصياه. هيا باي. qaybta dumarka ee hadlaysa tuuray abay lama haysto gabdhaha nolosh ugu qofka dooraan baa raacin daraystay lama haysto oo xataa gabdho badan waxa jira ajnabi ku qabo platforms loo shopping ka hadlo waxyaabo kala ka hadlo caadi waxyaabo danajo laakiin dumar waxa la haystaa kuwa inta ajnabiga kursiday ku soo jeesta ragga Soomaalida way qaldan macnaha leh Soomaaliday businesski community-go dadka ay ka tageen dad waa aragtay dad badan waxa jira cadaan oo Christian ah oo Muslim noqdeen diintooda oo dadkooda wax kama sheegan sax wala la way qaldan yihiin ta kuwaani marka abay kuwaani marka waxay sameynayaan platform soo furanayaan maanta wixii oo nubsiqa soo kufsado qofkaas familkeeda u soo galay reerkeeda macnaha community-ga Soomaalida ay ku soo dhaxmeeraysanayaan community Soomaalida xumaan ka dhex raadinayaan ayagu way ka baxeen way ay waxaas waqtigood ugu luminayaan macnaha dumarka la haysta waa dumarku noocaas u dhaqmaayo oo dumarkii wadaadadii waxbay ka sheegayaan oo nin naag isfuray waxbay ka sheegayaan oo way qodqodayaan oo way ku dhex jiraan dumarka la haysto waa dumarkaas maana lama haysto kuwa danahoodii raacday aan ku soo noqonaynin meeshay backgroundkeeda ahaayeen yes saas waa Umar soo dhaw Umar qaado صاحب حالي أنا تيك توك وريجا فيديو وحقيقي صور بحه والله بني مشي جاي جبر أو قبي جرنين نيجيريان أو قال أيضا قبو أسوق قبو الدين أو كجورسنا ما أخني الدين كم جورسنا دين مسلم كم جورسنا هاي ما قرأت أي جبر دي ما تي ما حاولني ودنك مشي لكن ودن أو قربها لي طبعا ما قرأت gabadhi masaajid walba oo la geeyo meesha degneed masaajid walba la geeyo waxay dhahayeen waxa waa wadaadada gabadhan kuma duugna qabuura waayo nin gaala qabay
kiniisadii uu geeyay xataa ninkii inuu qaatay oo gabadhiisa naagtiisa qaato kiniisada geeyay kiniisada xataa way soo diiday waayo gabadha muslim waaye marabno ma duugeenay dhahday ma garat ninkii heer wuxuu gaaray inuu qabto oo gubo oo waxa waaye meedkeeda gubo ka shakay hooyadeedu ooynaysa xataa waxa waaye aan soo dhigay baraha bulshada ma garat marka ani gabdhahan waxaan kula tilaa walaalaheenaniyo waxa waaye adlista nin muslim adlista guurso hadda gabadhan meeshaan saaran oo kale qaladay ku socotaa waayo nin gaal ah qabo ma garat diinta u baleesa diintee waaye عمرو ما الله أقول حتى في إير أكون شيء قبل كله ضيعت قبل حاجتي أنا وحمو قبل حاجتي سو أبو حير أو شيء باش وحير سو قبل حاجتي تذكر نين بيتر نين كان عليه مسلمية نين كان صاحبنا إسقورسين عليه مسلمية وذات كحور أرتا على مسلمين لكن أنت هذا قرصن كرو أن دين تلفانسي أو مبتئ خاطر دين تفهمه waxa arkaysa dadina isbarnaa masaajidka la geeyo xilada waa shahaadka loo qabtay igu meeriyo no ninkaas kale ma guursan kartid maxay la tiiti wali ma yaqaano kiro aan tarstaan ninka lagu bileey waa ninka hadda gabadha masaakiinta bal wax ku dhaca bal day qabuuraha muslimiinta ninka u yaqaano waa ninka gudaha loo bileey maaha ninka been maashi aamus adiga waa ka aamusneena marka hadleenay fiiri nimanka umro maaha nimanka markaas diinta qaata maaha nimanka oo dumarka loo fasaxay kuwa diinta qaata ayaga wali waa student waa inay wax bartaan ma iska horan ka guursan karaan problemka kaas waay gabadhii marka ninkii oo diinta sax u baranay guursanay iyadina marka hore diinta sax u aqoon dhaqan fiican malahay mariyay beebine ninkii ka daba ninkii hore uu carray asoo leeyahay oo iska qaawinta miya asagana waxaan ma kama fahmin hore ula siboolahay fiiri ninka haduu muslim yahay xataa adlist ya soo gabadhan oo galayo kala xataa waxa waay inuu gala xataa xaq ma aan gabadh inuu xijaabo oo qurxiyo oo dhaho san quuma roono ya laakiin ninku sii fildareynay ka war oo ku dhahayo waxa waay beert siigal نما شيء ورنيكاس شيخ وحو كواي فيري هلو مسلميو نكان ايان دينتي يا waxa la ogolay xaquuqda xaasku wax dhan la kala barbaro ninka taxwaa diintay ninka markii hore shahaadka loo qabtay oo naagta lagu diray oo isku tageen oo ninku wuxuu waxa isdhahay waa Afrika meeshii ah ninka laakiin waa cadaankan Afrika iska tagay waxa isdhahay gabdhahan xijaab maryahan waa weyn xiran malaha wax special ay wataan oo ka duwan dumarka in Ilaahay macnaha body shape kood inuu si kale u abuuran yahay mooday iga tag isku mid ah tiini I'm going to go back to my religion ma ka tagay war Soomaalida fiiri hadda gabar fiiri magaceed ma rabo inaan sheegay gabar caan ah oo social media ku jirto nin oo ka imaaday Latin America Colombia meelahaas oo garweyni wax sameeyay Soomaalida muslim uma leen jirin waa baqaniis oo ninka gaayb oo aad marka dambe nin kala soo qabo soo dhigay oo qaniisa subhanallah baldayba gabar Soomaali oo qabay oo Kenya ku qabay baldayba wargabdheena Soomaalida hadda waa la fasaadinaya ilaahay anaga marabna fiiri qof inta qaadno inaan u soo tuubaraacna waxayno laakiin reality-ga meesha hadda inaga gabarba hadda naga degatay daati oo dheysay waay gabadha Salma loo soo qaatay kan Salma fiidiyodeeda meel walba ka buuxaan Salma waa gabar yar xaq iska dhig ana hadda marabo hadaan sheekadayda mad ka dhex fahmi kartaan hebla marabo inaan dhaho qof hadda waxa jirto Soomaaliyada naag weyn ah Mareykan degan mar walba waxay samaysaa waxay amaantaa gabdhaha guursada ajnabiga waxay maarto platform u tahay macnaha dad Soomaali qaar waxay yiraahdaan lacag ay ku soo qaad Soomaali anaga dabeecad waxa leenahay qofkii aan aragno inuu waxayna war qofka asaa raba inuu ku helo oo qandaraas ku soo qaatay heblo ha qandaraas ku soo qaatay naagtan gabadhan waxay deganaan jirtay California meel la dhaho Oakland waxay guursatay nin madow ah hal cunug ka dhalay dadkii qurbaha mar hore soo galay waa hal cunug ka dhalay halka cunug ka dhalay wuxuu dilay ma qaan xabsi ala dhigay iyadana uu dilay way ka soo carartay California way ka soo guurtay Seattle soo guurtay abaar bay joogtay waxay aragtay noloshii ajnabiga waxay qiyaastay inay nolosha ajnabiga isaga baxdo ay Soomaalideedii aado marka Soomaalideedii aadayso waa inaad qiyaamo ku aadin wiil bay iskukaansadeen nin bay iskukaansadeen ninkii waxay macnaha waxay ku tiri ninkan oo anuga aan haysanay dadka madowga marka Soomaalida anaga dadka waa maxamed bedelna cunug Soomaaliga gabadha markay dhasho Soomaali loo ekaanaya waxa uu sheekaysan Soomaali inuu ka soo dhalay way guursatay wiilkii abaar markuu joogay dad iyada yaqaana imaadeen asaga waxay oo heblaab qabtaa heblo madowga waxay ku qabi jirtay halkan buuqi meeshu ka dhacay walaalay wuxuu yiri baba xumaada dabadu soo qabtay adaadan ka helay waad ka soo tagtay waxa runtii igu sheegaysa xumaantii ninkii ay kala tageen buuqi isku dhaceen
عيدي أي سومالي كوبلوضي بوك بان قرايا تري بلايو دنا سميسay waxay Soomaali u soo tubaraaday meel walba soo xayso wax walba soo samaysato oday bay markii dambe guursatay odaygii bay meel walba soo dhigtay macnaha waa meeshii u socotay waay marka annaga ma diidanin gabar calafkeeda nin muslina oo ajnabi ah guursatay ma diidaninba laakiin gabar Soomaaliyeed intay baxday shalay markay nolosha ka soo xumaatay haddana wali wixii ku sii jirto gabdhaan u dhalnay akhi ma rabna inay gabdhaheen intay daawadaan wixii normalize looga dhigo hadda gabdhaha أجنبي قبا أو وحيسنا أنا ما دهاي كل جود علف بأوجي صوت على شو إذا أباها ما كتكو أبورتي ومال والبعض مريس إلهي بقري إلها أقري لكن مد ربان سواء إن يعني قبلها النجي إيو society تجي إن الصومالي إن كنا نورمال نون نورمال جريان تحس أنا كدودينا تحس